السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن دا وذيال كسر هذا برامج جارة ونكو يقدرون هذا إيه بقولادو سامين تعمل باتة جود جدنين كفرعوني أو كل يبلاه الصوماليات برامج كانوا إسكاك عشان أيان وزارة هوين كي وزارة عدالة دور الجبرات كجبلان أيانا كسوس أيان لقصو صاري قرشر لقوم ممنوع أيو جدنين كفرعوني وحنا السعودة الشرعية مركز لقو عريب تريو جدنين كفرعوني هدور ربي أقرادو برامجك waxaa marti igu ah oo qayb igala noqon doona inta aan ku guda jirno Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim Cabdullaahi Yare oo markaasi kamid culimada Jubbaland iyo sidoo kale gudoomiso Faadumo Aadan Kateelo si lamid ah barnaamijka qaybka Raaxa Sheekh Xasan oo barnaamijka igala qayb qaadan doona doodan muddada ay hawada ku jirto ama aad daawan doontaanba waxaan si dheer ugu garfayn doonaa dhibaatada uu u geystay hablaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale doorka culimadu ay ka qaadanayaan iyo waxay diintu ka tiriba gudniinkan fircooniga ah oo in muddo ah si guud u soo socday ugu horeyn waxaan marka hore ku soo dhaweyn doonaa Cabdullaahi Yare oo barnaamijka qayb igala Sheekh Cabdullaahi ku soo dhaw barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وادوهي انا wada mahadsantahay waxaan mahad celinaya dhamaan ka qayb qaatayaasha ugu horeeya telefishinka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta oo runtii in bayaanaadkan ay soo baxaan iyo maxaan ku dadaal shacabina ayaduna ka ah sidoo kale ururada haweenka bulshada dhamaantood oo mahad celinaya wada mahadsantiin soo dhawaada way maam Faadumo ayaan idin u dhiyaa maam Faadumo soo dhawaada بسم الله الحمد لله أدبان وهوان كفرح سنة برنامج كنا إن أنا كقب كله أسوأ لها مد وحتر لا أيوة نخون دون هذا الله سبحانه وتعالى وكلاده ما هو راح ودي ما راح سود وذيلا بسم الله الرحمن الرحيم وندوهي ما مسكن أدبان وفرح سنة هذا هي قيبتها وينك وياي aad u mahadsantihiin soo dhaweyn kadib haduu eebo ogolaado wax guda gali doonaa barnaamijkeena si aan su'aalaha markaasi dabcan daawadayaashu ay sugayaan aan miiska aan u soo saaro ugu horeyn haddaan ku bilaabo Sheekh Cabdullaahi sidaan ognahay culimada Jubbaland waxay soo saareen bayaan ka dhan ah gudniinka fircooniga faahfaahin ma naga siin kartaa dabcan qodobada iyo ahmiyadda ay leedahay bayaankan ay soo saareen culimada qaybta ka tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاول أداد محسن تهاي جود هان وأنا مهد علينا تيمام كاكو لغله برنامج كان إيو كشغين تيسا أنت كبعدي إن مدة وزارة عدالة يا رماها الدين تي وزارة رماها وينكا جبلان وحي وذين يعني بلتعدي كان حلو هلو حنون كان يجردا ومضى أسيبتي أو رنتي دغن عادة أو أنا هين دغن ديني أنا هين in muddo ayay dadkeenu la rafaadsanayeen ilaa haddana wali wuu sii jiraa marka si xal looga helo horta in muddo ayaa lagu mashquulsanaa dhowr sanaba barnaamijkan waa laga wada shaqaynayay ugu dambeyntii marka culimadu waxay soo saareen bayaan ku saabsan gudniinkaasi fircooniga ah maadaama dadku waxaan ay diin u arkayeen waxaa muhiim noqotay ama laga maarmaan noqotay in culimadu ay ka dhahaan waxani waxa uu yahay hadduu dee diin yahayna waa la sii wadi haddii uusan diin ahayna laga hortagaa culimadu marka bayaan bay soo saareen Jubbaland guud ahaan dhowr meelood baa lagu qabtay magaalada Kismaayo Garbaharey Balad Xaawo Doolow intaasoo dhan waa lagu qabtay waxay soo saareen culimadu bayaan ah in maxaan ku dhahay uu xaraam yahay gudniinka fircooniga ah gudniinka fircooniga marka wax culimada islaamka ah oo ka dooday inuu xaraan yahay sideeda ma jirtaba waa xaraam laana waxaan gudniin ma aha waa dhaawac iyo curyaamin gabdhaha loo geysanayo waay curyaamin kastana waxa weeyaan iyo dhib kastana waxa weeyaan diinta islaamku waxay dhahaysaa waa in meesha laga saaraa ad-darar yuzaal waa qaacida fiqhiyya culimadu marka waxay isku raaceen koow in gudniinka fircooniga ah ama gudniinka gabdhaha waxyeelaba si guud uu xaraam yahay waxaa kaloo sidoo kale culimadu isku raaceen inay waajib tahay in tallaabo laga qaado dadka ku kacaya gudniinkaas gabdhaha dhibaatada u geysta oo dee qofkii dhibaata loo geysanaya qofka bani aadamka ah ama muslimka ah xagasho yar ama xangurufo yar oo qayr sharci oo lagu sameeyo waxaa ka ratimaya ciqaab iyo maxaan ku dhahay ciqaab ka ratimay waa faldambiyad way marka culimadu waxay isku raaceen gudniinkaas fircooniga inuu yahay isaguna sidoo kale faldambiyad ayna waajib tahay laamaha ay khusaysaa sharci ilaalintu inay maxaan ku dhahay talaabo ay ka qaadaan cidii waxaas ku kacda sidoo kale culimadu waxay isku raaceen gudniinka nooca uu yahay islaamku uu yaqaano islaamku wuxuu yaqaanaa gudniinka sunniga ah oo mushkilo aan lahayn dhib aan lahayn maxaan ku dhahay wax dhibaato ah haba yaraatee aan u geysanaynin oo gabadha inta la gudo maanta haddana dugsigeeda galabta iska aadayso marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan waxyaabaha culimadu isku raaceen
in gudniinkii uu yani fircoonigihii sidiisaba xaaraam yahay meel iska dhig waxaa kale isku raaceen dadka sameeya gudniinka fircooniga ah iyo gudniinka dhibaatada gabdhaha u geysta isagana in dembiilo qofkaasi uu yahay loo aqoonsado qof dembiile ah oo maxaan ku dhahay ay waajib tahay in qaanuunka dalka lagu daro qofkii gudniin fircooniga ku kacay ama gudniinka gabdhaha wax yeeleeya inuu dembiile yahay wabitaali ciqaabtii markaa uu mudnaa uu ka helo sharciga waxaa kaloo culimada isku raaceen isagana gudniinka sunniga ah inaan la dhihi karin si guud gudniinka oo dhan ha loo joojiyo culimadu marka way ku kala qaybsan yihiin yani sida ay u arkaan gudniin in la sameeyo gudniinka fircooniga meel laga dhig gudniinka caadiga ah oo sunniga baan ka hadlaynaa gudniinka culimada qaarkeed waxay yidhahdeen waajib waaye waa qowl aad looga raajixsan yahay laga awood badan yahay inuu waajib yahay waa laga raajixsan yahay gudniinka gabdhahan ka hadlaynaya gudniinka gabdhaha ragga ma ragga inuu waajib yahay kama taagna sidoo kale culimada qaar waxay yidhahdeen maya waa sunne wa hada huwa alqowl الراجح waana qowlka adilada u dhow qowl kale ayaa jira oo ah waa iska maamuus waa magac sharafeed un waaye waxyaana badan oo ku jiraay ma ay jirto haddii la rabana waa la iska dayn karaa haddii kalena waa maxaan ku dhahay waa la samayn karaa laakiin midka laga hadli kara ee la dhihi kara waa waajib waa sunne waa maamuus waa midka sunniga ah ama fircoonigu camal shaytaan weeye waa camal fircoon guud ahaan waa in la joojiyo wabitaali waa in ciqaab laga soo saaro si dadka ku dhaqmaya looga hortago oo maxaan ku dhahay loo dabarjaro aad iyo aad baad umahadsan tahay waya muhiimadiisa muhiimadda dee qof muslim oo dhibaato loo geysanayo muhiimadiisa waad garan karaysaa yani waxa weeyaan dadka muslimka ah laa darara walaa diraar in la isdhibaa ma banaana in la kala aargoostaana ma banaana ma banaana marka qofka muslimka ah in dhibaato loo geysto dee muhiimadda uu leeyahay waxa weeyaan gudniin ma aha waxaan aynu hadda ka hadlayno inagu waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan gabdho la diloonayo gabdho la cadaabayo ilmo yaroo waxa weeyaan aan awood lahayn oon qaan gaarin xataa haddii xilliga qaangaarka la sugi maxaa ku hayn lahaa ilmihii intuusan xoog yeelanin baa la qabanayaa hilibkiisii baa la jarjarayaa yani waxa weeyaan xubintiisii taranka ayaa waxaa lagu samaynaya xubinta taranka ilaahay subxana watacaala sabab buu meeshan ugu xidhay oo ilahay ugu rakibay subxaana watacaala meesha ilahay ku xidhana subxana watacaala sideeda in loogu ilaaliyo ayay rabtaa marka waxaad moodaaba inuu yahay qofka waxaan ku dhaqmayaa qof bini aadamtinimadka kasoo horjeeda waayo xubinta taranku xubin muhimba bini aadamku muhim u awaaye ama rag ha ahaato ama dumar ha ahaato marka in la jarjaro lama ogolo sidaa darteed ayaa waxa weeyaan muhiimadiisu ay u tahay in laga hortago waa waajib muqadas ah in ummadda oo dhan iska kaashato dowlad ahaan culimo ahaan bulsho ahaan kulli waa in la iska kaashado iyo maxaan ku dhahay garsoor ahaanba waa in la iska kaashado oo arrintaas iyada mataqaana ay istaagtaa waana muhim runtii in laga tallaabo qaado cidda dembiga isagaa ku dhaqmaysa yani kontonkii sana u dambeysay oo dhan waxaan baa la celcelinayaa laakiin haddii la samayn lahaa maxaan ku dhahay inta ololo la qaado dadka mujrimiinta ee falkaa ku kacaya ee la ciqaabi lahaa dadku way waantoobi lahaayeen marka waxa weeyaane muhiimadiisu runtii aad bay muhiim u tahay in laga hortagaay waad mahadsan tahay waayahay dabcan adiga ma kula tahay in culimmadu ay taageerayaan sharcigan ka dhanka ah gudniinka fircooniga in la joojiyo oo hadda hor yaalla baarlamaanka dee culimada iyagaaba soo saarayba sharciga waxa weeyaan horta sharci kasta ummadeenna lasoo saaraya waa inuu shareecada islaamka waafaqsan yahay wixii shareecada islaamka aan kasoo horjeedin waa caadi waa in la waafaqo weliba la xoojiyo in la hirgeliyo dhibaatada gabdhehna loo geysanayana culimada iyadaa la rabaa inay ugu horeyso oo ay maxaan ku dhaha ka hortagto waayo culimada iyadaa la rabaa inay xaqa iyo baatilka la caddayso marka wuxuu u baahan yahay keliyata in shareecada islaamka la waafajiyo taana waa inay inta aan baarlamaankaba la horgeynin walow baarlamaanka laftiisa culimo ay ku jirto intaan baarlamaankaba la horgeynin waa in maxaan ku dhahay culimada loo bandhigo culimo aqoon diineed oo rasmi ah oo xagjirnimo ayna ku jirin leh yani shaygan maxaan ku dhahay loo bandhigo xagjirnimadku way noocyo badan karaysaa qofka dadka waxaa jirta qaar madhabtooda keliyata u tacasubaya laakiin xilligii tacasubka waa la dhaafay يعني دينتو waxay gaadhay xilli nuduuj ah oo la bislaaday oo mas'alo walba meesha ku fiican tahay la garanayo ayaa la gaaray marka alxamdulillah waxa weeyaan culimadu way taageerayaan laakiin bisharti waa in shariicada islaamka la waafajiyaa anu haddaan dee culimada ka mid ahayna runtii dadka u ololeeya ayaan ka mid ahay in balaayadaas laga hortago masiibada iyada laga hortago waa wax hooyadii dilay oo gabdhihii dilay oo dhibaatada yani guryaheenii 90% inay u dimaan bay taagan yihiin dhibaatadaas iyada aad u mahadsan waayahay waa mahadsan tahay sheekh cabdullahi waan kuu soo noqon doonaa dabcan weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka gaarka oon ku eegaynay saameynta ama dhibaatada guud ee gudniinka fircooniga uu ku leeyahay hablaha soomaaliyeed kaas oo inta badan aad mooddo in dhaqan uu soomaalida u noqday wagaag markan waxaan dhankeeda aan u jaleecan doonaa amaan eegi doonaa faadumo aadan kateelo kusoo dhowow mar kale barnaamijka su-aasha ugu horreysdaan ku weydiiyey adiga sidee u aragtaa bayaankan culimmadu ay ku aadan gudniinka waxyeelaya gabdhaha soomaaliyeed بسم الله الحمد لله وما سنتين وانا اذا سلاميا waxaan leeyahay barnaamijkan barnaamij aad u fiican waaye aad u wanaagsan waaye marday culimadii islaamka ama Soomaaliyeed u kaceen barnaamijka gudniinka fircooniga
in badan aan la daalaadhacayno habeen iyo maalin baan u taagnayn in gudniinka fircooniga la istaajiyo inta badanna xal loo waayey ilaa hadda waayihii dambe meel fiican maraya hadday culimmadii intay u kacday ay soo hordhigtay dowladdii ama baarlamaanka soo hordhigtay in barnaamijkaa la joojiyo waxaan leeyahay barnaamij aad u fiican waaye waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay shaqadii kale bar baa la qabtay insha allah fulinteedana waan gaari doonaa ma aha wixii in markasta hal mar la dhammaystira markasta ma aha ilaa wax soo jiita ma soo jiito barnaamijka wuxuu curyaamiyey haweenka soomaaliyeed gabdhihii soomaaliyeed fooshi bay ku rafaadayaan uurka bay ku rafaadayaan gabarnimadii bay ku rafaadayaan ilmanimadii bay ku rafaadayaan intaasba cillado xanuun baa soo maraya intaas oo dhibaato keenaya marka haddii inta la istaajiyey ee culimmada ay garatay barnaamijkan inuu uusan sharci ahayn diinta uu ku xun yahay diinta dhankeeda uu laga soo galay in la istaajiyo annaga waan ku faraxsana waana garab istaagan dowladda iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo waxaan leenahay culimmada soomaaliya ama culimmada reer jubbaland haddaba aan la fadhino barnaamijka way ku mahadsanyiin in loo istaagano way fiicneed aniga waxaan arkay gabdho tiro badan oo la dhibaataysan barnaamijka la dhibaataysan fooshii gabadhii markay foolanayso ilmihii ma ka soo baxayaan waayo waxay tolan tahay intaasoo qodob oo kala nooc bay tolan tahay markay gabadha tahay ee la gurigeeya caawa dhibaatadeeday leedahay ninkiiba way nacaysaa waxay u nacaysaa ninka dhibaatada ka sokaysay ninka u nacaysaa oo wax dhadhan halkaa kama dareemayso markay yar tahay gabadhii oo ay tahay ilmihii yar ay tahay kaadi baa ku xirmaysaa marka sidaas waxaa dhibaato kusoo gaara haweenka soomaaliyeed ilaa 10 intay ralayso maqas baa lagu jarjarayaa mar kastaba waxaan leeyahay culimmadu way mahadsan yihiin barnaamijkana hala dhammaystiro wax allaala wixii ku saabsan barnaamijkaas waxaan leeyahay waxaa istaagi doona tacadiyada ku dhacaya haweenkao dhan baa istaagaya hadday culimmada u istaagto oo wixii qalada ay joojiso waxaa istaagi doona tacadiyada dhacaya oo haweenka ku dhacaya nooc kastaba ha aadee ayaa istaagi doonaan isleeyahay waayahay ma isleedahay in bayaankan uu badbaadin doono gabdhaha yaryar ee lagula kacayo gudniinkaas ha hadda hal cilad baa jirtaa gabadhii haddii gudniinkii aan gabdhihii wax gudayay lala hadlay oo waxyigelin la siiyey oo gabdhihii wax gudida ku jiray ee fircooniga gudayay inta badan hadda wasaaradda haweenka iyo wasaaradda cadaaladda iyo ururada bulshadaba ay u qabteen tareerina intay u qabteen ama siminaaro kala duwan loo qabtay uu soo yaraanaya gudniinkii fircooniga ahaa weli caqabad baa taagan gabadhi markii la gudo waxaa la leeyahay gabadhan la guday aan fircooniga loo gudin ee sunnaha loo guday gabadhi way furantaa la leeyahay gabadhii ma aha gudniinka fircooniga ahaa iyo sunnada allah subxaana wa tacaala labay kala yihiin kolley sheeca ka hadli doonaan muxuu ahaa bikrada ma aha bikradii la toltola ma aha bikrada waa bikradii allah subxaana wa tacaala uu sameeyey markaas dadka ay wada garanayaan waay ilaa qodobadan 8 qodob ama 10 qodob intii la israaciyey dunta iyo la isugu daray maqaska la isugu daraayo iyo cirbada la isugu daraayo ma aha taas cilada jirto waxay tahay marka in la leeyahay gabadha way furan tahay guurka marka la guursan lahaa hooyada ay leedahay gabadha yarta marka guursanaayo ninka wuxuu dhahayaa way furan tahay gabadha hadhow waa la soo ceelin doonaa ninka wuxuu leeyahay gabar fiican maad ahayn gabar xun baad ahayd ciladaha hadda jira ee hadda soo noqonaya waayaan ugu soo noqonaya oo gabdhaha markaan wacyigelin ay ka hadlayaan qodobkaas ugu dar ilaa waxaan leeyahay haddii xagga diinta wacyigelin dadka laga siiyo oo culimmada ay hadasho oo dadka la gudaye waxa gudaye kuwa la gudabay inta la wacyigeliyo barnaamijkaas waxaan leeyahay barnaamij fiican buu noqon doonaa waxna way ka qaban doontaa kale way soo dhaweey doontaa ugu yaraan 80% in laga gaaro xalal laga yaabaa waayahay ka haween ahaan doorkiina muxuu noqon doonaa isleedahay waan u taagana horta barnaamijkaas annaga dad islaam baynu nahay fircooni ma nihin dadkay dhibaatada kusoo dhacdaanay annaga oo sida xun loo soo jajaro hilibkooda la soo jajaranayo anay faadmahan baan ka mid ahay waxaa laga yaabaa gabadhan walaashay actiifar inay ka mid tahay dhibaatadii aniga igu dhacday oo gabdhahayga ku dhacday inay kuwa dambe ku dhacday jiilka dambe ma rabo waxaan leeyahay barnaamijkaas hadduu alla subxaana wa tacaala ogolaado hooyooyinka soomaaliyeed ee maqlaya gaar ahaan reer jubbaland hadda aan joogno inay barnaamijkaas wax ka bedelaan dhammaan gudniinka fircooniga la joojiyo gabi ahaantiisoo la joojiyo aan lagu fikirin dhaqaatiirta wax guda hooyooyinka banaanka wax ku guda cid kastee wax gudabo inaan islaam baynu nahay dadka islaamka diinta islaamka haasto inaan diinta islaamka wax ku gudan sunnadii lagu talagalay in gabdhaha lagu duday intii la gudi jiray ee la taaban jiray laga taabto kadib gabadha la fasaxo waxba laga qaban marka waxay imaan doontaa kalsooni ragga iyo haweenka hooyooyinka iyo gabdhaha isku kalsoonaan doonaan oo sunnada lagu faani doona insha allah saasaan rajaynayaa waayahay maam faadima aad u mahadsan tahay dabcan weli barnaamijka ayaan qaybihiisii dhexa kaga jirnaa haddii eeba ogolaada maam raaxa igu dhiib mikrofoonka
maamo adiga ahaan sideed u aragtaa bayaankan culimmada jubbaland ay soo saareen بسم الله الرحمن الرحيم si fiican baan u arkaa dee dhibaato socotay baa ahayd Soomaaliya dhibaato qofkii ka hortagana dee waa wax fiican buu ka hortagay way gudniinka magaciisa wuxuu fircoon baa leeyahay fircoon nin gaal u ahaa waayahay dee magacaaba laga markii hore hore wuxuu magacu ku xumaa dadka horena dee diinta malaha yaa yareyd waan fahansaneen haddii la fahansan yahayna laguma fogaadeenba marka horeba haddana waxaan leenahay diinta haddii la fahmay oo dadka diinta badatay oo la faafiyey oo la fahmay in waxaan wax u yahay in laga kaaftoomo ay la qurux badan haddana culimada aad baan u soo dhaweynayaa marka waxaan leeyahay dadka culimada iyo dadka bulshada dad bulshada oo dhan ba hadee waxyagelin badan ha loo fadiyo inta la wada in ka badan ha lagu sii fidiyo hadee culimadii iyo dawladii iyo dadkii iyo ururka haweenkii iyo wixii oo dhan gaadhay dadka oo dhan way wada gaadhaysaa marka TV-gan hadda laga hadlayo dadka dhan buu gaadhay dad badan baa fiirsanaya marka 100 baa maqlaysa 100 kale ka sii maqlaysa in baa sii sheegaysa suuqa la wada maraya waayahay marka sida badan baa loo maqlayaa qofka hadee lagu arkona waxaa fiican ba hadda ani waxaan ku talin lahaa qofkii lagu arko hadda oo intii dadka intuu magaalada loo galo la soo wareego oo qofkii lagu arko la qabto oo si caadi ah loo dhaqan celin gees loo fidiyaa ila qurux badan anigu waayahay maam raaxo adiga ahaan saameyn noocee ayay tani ku yeelan doontaa xirfadiina saameyn weyn bay nagu yeelan rabtaa waxaa weeye waxaa noo anagu waxaan tabar u la'ayn baa naloo xoojiyey waa annagu waan soo marno hadda waa soo gudubnay waxaan dhalayna waxaan kusoo suubinay waxaan hadda ku suubinana in waxaan kusoo suubinay aan kusoo suubinay wixii aan hadda noo dambeeyay inaan nalaga qabto oo shareecadu ay wixii shareecadu ay sheegtay aan ku dhaqanno hadee wixii alla ka fagaashaabin ku jirnay alle hadii diinta hadii ninka ka baxay kusoo noqon la dhago soo ma wanaagsana sida diinta inaad kusoo noqoto u wanaagsan tahay waxaan in laga tago u wanaagsan tahay marka waxaan u arkaa dhaqan fiican oo hadda amanka horeba wuu fiicnaa dhaqankeenu diinta waan haysanay laakiin waa inagu yareyd haddana diinta la faafiyey si fiican baan usoo dhaweynayaa culimadii iyo dawladdii iyo dadka oo dhanba waxay barnaamijka la soo dejiyey si fiican baan usoo dhaweynayaa waayahay ka adiga ahaan ma u hoggaansami doontaan bayaankan ay dabcan diintu ay xaaraantimaysay oo ficilkan gudniinka fircooniga ah si weyn baan ugu hoggaansamahayaa wixii aan gaadhsiin karana waan gaadhsiinhayaa dad kuwaan dhalayna wixii aan gudnayn oo ma gudi dooni wixii hadda aan ka gaari karo oo aan afkayga gaadhsiin karo adinkayga gaadhsiin karana waan u sheegahayaa wixii aan ku arkana waama soo dacweynayaaba aad baan ooga qayb qaadanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaah way maadaama hawshan ay xirfadaada ahayd bulshada Soomaaliyeed ay ku daawanaysa seed ugu qancinaysaa in waxan la joojiyo oo la dabar gooyo waxaa ku qancinayaa ilaahay laga cabsado marka horeysa alla ka cabsiga ka weyn qof hadood alla ka cabsanaynin wixii kastoo iska samayn karaa waayahay alla ka cabsiga waxaan ka weyn marka horeysa alla in laga cabsadaan yaan u sheegayaa waayahay marka ka dambaysa gabdhaha dhibaatada lagu hayaa laga daayaan leh waayahay inta horeena soo martay aan ku joogsanno wixii hadda ka dambeeya gabdhaha dhibaatada laga daayaan leh waayahay oo kaamada Soomaaliya saas u sheegaya waayahay aad mahadsan tahay waan ku soo laaban doonaa dabcan qaybihii dambe ee barnaamijkan oo soo gaarnay waa maraaxadii baan ugu soo noqon doonaa Sheekh Cabdullaahi haddii aan u dhiibo Sheekh Cabdullaahi ugu dambeyn maadaama qaybihii ugu dambeysay barnaamijka aan soo gaarnay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direysay bulshada Soomaaliyeed culimada iyo baarlamaanka oo sharcigan hor yaallo maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii fariinteeda aan faraya waxa weeyaan maadaama aan magaca culimadeena ku hadlaan raba ama aqoonyahanka Soomaaliyeed diinta Islaamka bartay horta dee saynu sheegnay waxaa jirta qaacida fiqiya oo dhahaysa ad-dararu yuzaal dhibaato waa ka hortagid mar haddii meesha dhibaato taalo culimada baarlamaanka maxaan ku dhahaye golaha wasiirada dhammaan hay'adaha fulinta iyo hay'adaha garsoorka dhammaantood waxaa laga rabaa iyo hay'adda maxaan ku dhahaye wada tashiga anigu sharci dejinta ma dhahaye golaha wakiilada dhammaantood waxaan dhahayaa barnaamijkan in laga hortagaayo waa waajib muqaddasa waaye waxay waajib muqaddasa u tahay ilaahay baa subxaana wa tacaala xaaraameeyey dadkeenni ugu tabarta yaraa inaynu maxaan ku dhahay dhib u geysano oo dhibkiina weliba laga dhigo wax diin ah runtii waa musiibo waaye haddii xataa tacadiga la iska samaynayo dhib kuma haysteen marka dawladda waxyaabaha in la ilaaliso loo baahan yahay waxaa ka mid ah diinta markii diinta tafsiir qalada la geliyo cidda la rabo inay ka hortagto oo xoog u isticmaasho waa dawladda hadda tusaale ahaan maalan xarakaadkan dadka laynaya ama maxaan ku dhahaye dadka qarxinaya cidda la rabo inay culimadii fadwoon lahayd garab siisaay waa dawladda waaye marka dhammaan hay-adaha ay khusayso
iyo bulshada guudba waxaan dhahaynaa horta gudniinkaas gabdhaha dhibaatada u geysanaya ha laga daayo waxaan si gaara usii dardaarmayaa hooyooyinka gabdhaha ama guda ama dhalay runtii gabar waxaa lagu sameeyaa waa haween waxa sameeyaana waa haween arrintan iyada ah gabdhaha ragga inta badan gabdhuhu qaarkood ku eedeeyaan raggu shaqo kuma laha sideedaba waxa weeyaan bikaaradu waa shay daakhili ah banaanka maba jirtaba meeshan la toltol iyo meeshan la gogoynaya bikaaradii maba aha waa shay daakhili ah ilaahay subxaanahu wa tacaala meel ku abuuray ee maxaan ku dhahaayay meeshaasay ku abuuran tahay inay iska joogtaa marka waxaan kale haddii la rabo dee mar hadday tolmo tahay tii intay isbikaare jabiso waxay doontaa ay samayso haddana istoltoshay maxaa diidaya wax badan maa moogtahay waana ficlan mararka qaarkood inay dhacaan waa la sheegaa marka waxani wax ma aha lagu ilaalin karo toltolmo ma aha googoyn laguma ilaalin karo qofka ilaahay ilaaliya ayaa ilaashama waxaan intaa kugu sii darayaa gabadha fircooniga loo guday iyo ta sunniga loo guday waxaa la ogaaday waxaa ka xishood badan gabadha sunniga loo guday maxaa dhacay dhadigoodkoodii bay dareemaysaa tanina waxa weeyaan dhadigoodkii baaba laga jarayba dhadigoodkii baa laga jaray marka dareenba maba jiraba ilaahi subxana wa tacaala wuxuu u kala abuuray dadka qof kasta waxaa ku nooc hormoonada ka mid ah ku badan marka hormoonnimadkii gabadha ay lahaydba waxa weeyaan waaba la dilayba khalaas waa qof dhufaanan oo aan dareen lahayn oo iska soobir ah oo iska durdurinaysa balaayo walbana hadday rabto jiidaysa laakiin tan mataqaanaa qabta dareenkeedii qabta oo xiniyaheedii loo dayay gabadha xiniyaheedii moogta xiniyaheedii qabtaay xishoodkii ragga ayaa ku jira marka dhadigoodkii iyo cabsidii iyo wixii oo dhan baa ku dambeeya marka waxaana inoogu filanba waaqica Soomaaliga yani wadankeena intee ilmood oo maxaan ku dhahay la soo tuuray baa jira boqolkiiba 90 dadka soo tuuraya waa fircooni marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al-ma'suum man 'asamahu Allah qofki ilaahay ilaaliya ilaashan ilmaha waxa way dhinaca laga tarbiyeenayaa dhinaca hilibkiisa la jarjaraya ma dhinaca laga tarbiyeenaa waa dhinaca aqeedada waa dhinaca akhlaaqda wanaagsan waa dhinaca dhaqanka suuban waa dhinaca gabadha inaad ku dhiiri geliso maxaan ku dhahaye inay hatta guursato oo gabadhaada aad dhahdo hooyo ama aabo maxaan ku dhahaye markaad guur u baahato qofkii adigu aad ka hesho iyo keen waan ku guurinaya la dardaaranto si fiican la dardaaranto oo dhahdo waxa weeyaan anaa ku caawinaya hayga baqin garabkaagaanahay anigaba waxa weeyaan adiga waxaan kugu dhalay maxaan ku dhahay jacayl iyo reer baan kugu dhalay adigana jacayl waa yeelan kartaa waa guursan kartaa hooyo dareenkaaga ilmahaygi baad dhalaysaa ayayaa ilmahaaga u noqonaya yani tarbiyada dhinaca in laga gala ayaa la rabaa marka ilmaha sidaynu ku ilaalinaynaa ma aha inaan ilmaha ilbihiisii jarjarna ma aha libaaxa soo dhacay sarsar walba oo loo sameeyo uu ka soo dhacaya libaaxa soo dhacay marka toltolma gabadhu kuma badbaadaysa ilmaha yarka ah yaan la silcin anagu waxa weeyaan gabdhaanu dhalay yani waxaan ka taagannahay maxaan ku dhahay in gabdhihii aanu dagaal marka yaa Allah baan ku badbaadinaynaa war intii horena yaa Allah baan ku badbaadinay oo hooyadu intaas oo sanad ka hortaagnayn oo seeb bud la hortaagnayn maxaan ku dhahay ku dambeynaa badbaadinaan rabnaa insha Allah taala marka waxani waa fidnada ayada ahna ha laga hortago ilaahayna ha looga baqo ummadda lafteedana maalin walba yaa lagu soo celcelinayna inta la hirgeliyo implementationkiisii fulintiisa aynu isugu imaano maalmaha soo socda haddii la yidhahdo aad mahadsan tahay oo kaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aduna markaas aragtidaada hufan aad uga dhiibatay wagaag markan waxaan u dhiibi doonaa maam Faadumo Aadan Kateelo oo iyaduna markaasi dabcan talada ugu dambaysa ama aragtideeda ugu dambaysa waa ka dhiibanaysa ka hooyo ahaan wuxuu yahay qorshaha idin kaga yaala ama talada ugu dambaysa aad gudbinaysa waxay tahay bismillaah qorshaha u dambeeya aan gudbinaya ama talada aan ka dhiibanaya horta tala ahaan markaan soo qaado barnaamijkan hawshiisa waa arrin diineed waaye madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan dastuurka Jubbaland marka la sameeyay la aadayay dastuurka dadka lagu wacyigelinayay wuxuu noo sheegay wuxuu ahaa koow diinta islaamka lamana dhaqanka marka wixii dambe la sameeyay hala sameeyo mar haddii dastuurkeena ee Jubbaland uu dhigayo inay diinta inoogu horeyso koow tahay mar labaadna ay tahay dhaqanka uu mar labaad yahay horta waa diinta in lagu hergeliyaa sharci la sameeyo qofku qof dila si loo istaajiyo in loo tooganayo gudniinka fircooniga loo inaga waxaan sameyn doonaa insha Allah gabdhaha wax guda waan wacyi gelinaynaa sida hadda walaashay ila fadhiga camal dadku wax guda ay ka mid tahay waxay ii sheegtay in wixii maanta ka dambeeyay ay wax gudi doonin dadka wax la gudana ay macnaha joojin doonto hadii ay wacyi gelin doonto oo maanta kadib aan la gudi goono waxaan wacyi gelin doonaa hooyooyinka ee gabdhaha dhalay noocyada kala duwan ama ganacsatada ama guri joogta ama cid kasta wax qabata waxaan ka wacyigelin doonaa meelaha cusbitaalada meelaha wax lagu guday meelaha aan isleenahay shaqadan way ka socotaa aan ka wacyigelin doonaa oo aan shaqo badan ka qaban doonaa insha Allah awalna waan ka qaban jirnay anagoo wasaaraddeena haweenka kaashanayna iyo culimada iyo cid kasta oo TV-ga Jubbaland iyo idaacadaha kaashanayna iyo social media waxaan sameyn doonaa insha Allah
barnaamijkan inuu nagu soo noqonin baan rajaynaynaa waxaana garab ka dooni doonaa culimmada iyo wasaaradda cadaaladda oo shaqo wadaag aan nahay aad buu u xun yahay waxyaabaha dhibaatada u keena cisbitaallada way ogyihiin gabdhaha ka umuliya markhaati ayagaa ka ah gabdhaha gudniinka fircooniga la guda dhibaatada ay leeyihiin way ogyihiin ayaga qudhooda waxaa la rabaa inay ka wacyigeliyaan meelaha wax lagu gudo wax is ogyahay kismaayo waa la ogyahay in loo sheego wax dambe ma gudi karta la qofkii la gudana lasoo wax gudana lasoo xiro maamul raaxo sheekh xasan igu dhiib maamul raaxo waxaad ku jirtaa dabcan dadka sanacada ku shaqaysanayay dhowrkii sano ugu dambeeyey bal adigana waxaad ugu dambeyn bulshada soomaalida ku daawanaysa barnaamijkan daawanaysa waqtigan maxaa adna qorshe ah oo kaga yaala sancadan sii wadisteeda iyo inaad joojiso maadaama culimmadii ay kasoo horjeedsadeen diin ahaanna loo diiday ururkii haweenkana doorkoodii ahaa in ay dabar gooyaan ay ku dhawaaqeen qofku hadduu waxaan diinta xumaysa la dhaho inuu ka joogsado sharcigaa sheegaya waayahay waan kusii soconna diintaan ka baxay waa waayahay qof gaalnimo ku jira haddii la dhaho islaan noqo oo uu dhaho ma noqonayo waan gaalkii sooma tan diintaa cayday diintu hadday xumaysayna waa in laga baxo sharcigaa sheegaya waayahay anna wuxuu sharcigu dhahaan u hogaansamayaa diinteenna waxay raacdaan raacayaa waayahay inta kale ee ku jirta falkaana waxaan leeyahaa ka baxaan waayahay ummadda soomaaliyeed oo dhanna waan u sheegaynaa wixii aan gaarsiin karana waan gaarsiinayna aad baan oga xunna waxaa soo marray wax dambana oga noqon mayno waayo aad baad mahadsantahay maamul raaxo guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan gaarka oon ku eegeynay dhibaatada guud ee gudniinka fircooniga uu ku yeesho hablaha soomaaliyeed barnaamijkan waxaad ka daawanayseen telefishinka jubbaland barnaamijka waxaa markaasi igala qayb qaatay sheekh cabdullaahi maxamuud ibraahim cabdullaahi yare iyo gudoomiye faadumo aadan katale iyo sidoo kale raaxo sheekh aadan oo ka mid ah dadka sancadan ku shaqaysanaya dhowrkii sano lasoo dhaafay anuu cawil cabdi cabdullaahi labaqida barnaamijkeeda la socodsiinayay wasaaradda haweenka iyo wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta arrimaha diinta ayaana bayaan ka soo saartay qorshaha lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga waxaana socda sharciga lagu cidhibtiri doono gudniinka fircooniga barnaamijka ayaana mawduuciisa uu kaas ahaa intaan dib ugu kulmi doona barnaamijka kan lamid ah hadduu eebo ogolaado aniga iyo saaxiibadii kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu